يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلبي در إلهي وأويي بوهنونك حراك وهلالي وإليس ربي أوكتوني وحيبا برقني تلسيني أقري يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي سودة هذا ما شاء يا الله. نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي نوشر قريب ما شاء الله. نبي الله يا رسول الله رئيسك مدينة راحوي هوي رسولك إلهي ربتيسيو روضة ذي ورياض روح ذي كالقعيل قراقي محمد رئيسك مدينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ربتيسيو ما شاء الله جزاكم الله خير. صلي النبي آخرين يسي ما شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سود وهذا نوشر قراية خير كواية خير لإذين هايا أنيقا واي رمضان اللي جرا إن أنك فايدي سنة واي مالمهني خير كواية أنك فايدي سنة أو إسكو شاقنا أن ماركتي أن إسكو وعدينو نمبرك إيسو نمبرك كورو كقرية نمبرك عرفتين أنا إيسو وعدين واتسأل كول كاس سومالي واي لمبر سومالي إذين لقاتي على أسباب أصحاب سومالي dadka Soomaaliya joogaan lambar Soomaaliyan la qaatay UK aan joogaa lambar Soomaaliya idin la wataa sheekadu waa dhamaatay UK lambarkiisa idin ka soo wici jiray Soomaaliyan lambarka furtay waa la ii keenay intaan ku haystaa daa isoo wacdo waa ka qabanaa jaa WhatsApp ahaan u save garayso insha Allah biidnillaahi kariim marka waa ka saada isoo wacdo WhatsApp waa ka agtaydu yaala 42 lambar fure 42 reer Soomaali saasay dhaan lambar fure 42 wax badan ay ibrahim naftarkayga Soomaaliya u socdaa ma ogidin إلهي خير هنوغا ديغو سوماليا نبات الله هنوغا ديغو wax kaloon sheegayna malaha adduunka gabagaba waaye khayrka un baan meeshan ku haynaa ilaahay waxaan ka baryay kan Soomaaliya haya koo kale ma hay ani maya kan Soomaaliga ma aha kulaha ka Soomaaliga haya ka Soomaaliya furtay Soomaali adoo joogta amala iga soo wacaysa daa soo wacdi WhatsApp intaan ku haystaa soo qabso iga soo wac kaas dadka badanaa iga soo wacayaan maya Soomaaliya kiisa ma aha maxaa lagu jeedaa كاسان هيستا علي نور محمد دادا مالي ور waxaa u jeeday iisoo qoreen walaalay teleefankii maxaa u damisay kulaha teleefanka kale waa ka bixisiin kaarka kanaan gashtay because howlaan haya waxaan haya tabarucaadaan haya dad walaalaha caawinooya masaakiinaan caawinooya kana ii fudud dadkii wax ku soo shubaayeen inaan hore u sii gudbiyo kii isoo wacayn inaan ka qabto easy way waa ku shaqeynooya marka teleefankayga meeshuu ku qoran yahay 42 ugu dambeey adiga save garayso ali nuur maxamed adiga qoro adi save garayso teleefankayga kor uu ku soo qoran yahay waxa u save garaystaa sida WhatsApp-ka oo kale u save garayso biidnillaahi kariim markana iga soo wac dadkii teleefan Soomaaliyan la qaatay ma sha Allah tabaarak marka walaalayaalow page-kan page item ma ahan page-kan page problem ma ahan page-kan waa page-ka khayraadka ah qofkii wadaad hadoo ku jiro woo soo qabsanaa woo noo wacdinaa gabar ma hadii ku jirto oo ma sha Allah wadaadad ah way soo qabsanee way noo wacdinee haduu ku jiro wiil wanaag jecel wuu soo qabsanaa wixii wanaagu noo sheega waa inaan wanaaga isfarnaa bishaan bil Ramadaan waa ilaaha iskale beejkan beejka calafdoona ma aha beejka caaytintana ma aha beejka siyaasadana ma aha waayo tabarucaad waayo dadaan wax ugu tabarucooyaa howlan ku hayaa kii rabana soo galo kii aan anficaynin ha iska baxo caaytin tabar uma hay aniga maanta aan soo naay afkayga waxaan rabaa wanaag inaan ku shubtaan rabaa ilaahay waxaan rabaa inuu xaqi aan rabay inaan sheego dadka la caawiyo dadka masaakiinta la caawiyo problemada jiro aan ka gudubno aan isku wacdino
wanaagga isku sheegno qasqaska iyo qashqashaada lahaayo la dhaafo laysku dhimriyo laysku samro boggan waa boggii kheyrka waay marka haddaa fahmaysiin waa kaasa marka walaalayaal soo dhawaada noo sheer gareeya meel kasta noo geeya cabdullaahi maxamed xaashi maasha allah ariirey faylanta faylana ariirow faylan igaarkii kayn faylayna marka ha ku soo dhawaada maasha allah tabaarak wiil waxa waaye maasha allah oo isoo xasuusiyey ma yaqaana asaga laakiin wuxuu isoo xasuusiyey luuqadeeda faylana alxamdulilaah waa hadaay haddamadii ana ha furi ha gale alxamdulilah way fadaanay inay wanaagga iska sheegno oo macnaha boguun bog oo layska caayaa oo borobaleen wadada ma bog waay waahe oo siyaasi iga raali ahaada waxa waay mataqaanaa luuqadda oo digl iyo mirif waa kala badan yihiin ani marka luuqadda hooyaday oo ah reer daafeed 5 caleemood iyo luuqadii reer baydhabo aan isku dhex wadaa marka keyga xoogaa exactly ma aha ma toosin kari reer daafeedka marna galaa marna waa soo baxa kii reer baydhabaan galaa labadaba waa ka dhashtay so what can I do marka waxa waay labadoodiiba waxa waay waa isku daraa ma fahanti marka wiilaa ku jira cabdullaahi maxamed xaashi wuxuu rabaa inuu isoo xasuusiyo afkayga maayga ah maasha allah ani xamaraan ku dhashtay laakiin waa fahmaa waana ku hadlaa maasha allah tabaarak inkastoo aan haysto oon isku qaso kii reer daafeed kala haystaa kii reer afgooya haystaa afgooyan dhinacaan ka galaa kii baydhabana waa haystaa barobalayn male marka waa lay fahmaya maasha allah tabaarak hooyo 5 caleemooda ay dhashay kheyr allah siiyo reer daafeed gurigeenna abtiyaashaya u badnaay luuqadda daafeedka aad aan u aqaana aniga kan baydhabo mar dhowaan bartay aabaheya mirifle mar dhowaan bartay kii oo baydhabo marka xoogaa waa isku dhex wadaano dhib male marka ani xamaraan ku dhashtay shiir kolan hadda la dhahooyo borobaleenaa ka socda iyo waa la isku tumooyaa shiir kale xuduntayda ku duugan meeshaan ku dhashtay anaga reer xamaraan nahay xamarkaasoo hadda qalalaasada lawadaan ku dhashay ilaahay nabad ha nooga dhigo waa u ducaynaynaa dad masaakiinaha jooga u baahan in la caawiyo waa inaan wanaagga isfarnaa kheerka isfarnaa haddaan soo afurne taraawiixa waxaa noo dhiman hal sac halkaas saacaan rabaa inaan ka faa'iidaysto diyaar ay mujeedado taraawiixaan hore ka aadaa soo marka inaan kheerka isfarna waa anoo taraawiix u socdo oo maanta dhan soonnay mii dambaajinaysiin tabarucaadaan ku jiraa dadaan caawinooyaa kii kusoo darsanaayo ha soo qabsado kii noo sheekaynaayo ha soo qabsado kii su'aal qabo ha soo qabsado waayo shiiqyadii saacaddan wixii ka dambeeya lama helaayo marka sidaas alaa adigeeda wiila isoo waca waa soo qabanaa maasha allah tabaarak okay sug microfonkan kugu xiraay wiilaa soo qabsado sheeko noo bilaabay haye maasha allah asalaamu calaykum isug microfonkan kugu xiraa wax yar isug wax yar ii kaadi sheekh haddaad tahay haddaa wadaad tahay kulli wax dhan waa la rabaa cawado wax la diidaayo male asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum maasha allah tabaarak ku soco haye sonson waay wanaagga inaan farno wadaad ma tahay wadaad ma tahay sonson waay wanaagga inaad dadku u fartid dhibaatooyinkan socdo la joojiyo tabarucaadaan meel ka wadnaa dadaan caawinaa in laisgarab istaago in maskiinka la caawiyo wanaagaan faraynaa maanta dhanaan soonneen afkeena marka wax fiican inaan ku sheegno maaho intii taraawiixda laga gaarayo ku soco meesha harta ka qabso maasha allah maasha allah si wanaagsan qofka burtuka wax wanaag ka fiican ma laha taas way taan u fadhiyaba maaho marka aad u mahadsan tahay barnaamijkaaga iyo maartay iyo shaqada wanaagsan waa maartay waad mahadsan tahay adaa mudan marka qofka dhahay taleefanka soo qor kan soomaaliya maahane kan dibadda soo qor adi mu ahaa adi mu ahaa qofka dhahay taleefanka soo qor kan dibadda kan maaha soomaaliya maahane mid kale soo qor qofka dhahay adi mu ahaa may aniga hadda meeshaan akhriyay waa daawanayay life waa arkay waa daawanayay marka kana meesha ku arkay maasha allah hay noo faa'iideey dadka inaan wax u qabano dad masaakiin oo badanaa joogo xamar ilaa iyo gobolada waxay u baahan in la tabaruco waxaa loo baahan in la caawiyo waxaa loo baahan yahay in loo istaago waxaa loo baahan ada dhinac kasta ka qabso programka dhib mala dhinaca jeceshahay ka gal hay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabay marka soo dhawaada maasha allah tabaarak waxa waaye aniga siyaasad ma ka hadlooyi sidaan hore idinku sheegaba ka faa'iidaysta meesha waxaan ugu soo qoray inaan ka faa'iidaysano wanaagga khayrka ilaahay dartiis inaan u istaagno waayo maalinta aakhir waana iloo soo fariisinayaa
inaan waxyaalaha oo dulanka ah ka hadalno inaan dadkeenii dhibaataysanayo u baahan in la caawiyo la garab istaago labadan beri howlaan hayna maasha allah dhalinyarada tiim gaarsiiyo hoolay soo qabteen way soo caawiyeen dad lacag soo dhiibta maasha allah $350 shalna soo gashay waan qaybinay maasha allah tabaarak sidaas alla adligeeda haddii aan helnana waan sii wadaynaa haddii maaragta aan xoogaa yar maxay ahayd toole aan gaab yar aragnana waan u nasanaynaa intaas waayo hawsheenna marka waxa waaye wanaagga in laysku faro ayaa fiican adduunka inta la joogo beritoole waa lagu qorayaa maanta hal xumaato ah ama hal caytin ah haddaad medias ka fidisid waa lagu haystaa soo marka ani waxaan jeclaa maadaama ramadaan yahay maanta dhanaan sooneen inaan bakti iyo nijaas aan ku afurno waana loogu fiican yahay inaan ku afurno waxaa fiican hadal macaan iyo waxaa fiican anagoo wanaagga samaynayno waayo 12 biloodaa nala siiyey 12kaas bilood nala siiyey waxay ahayd 12 bilood oon sidaan rabna aan samaynayna baandaa soo gelaysa waa caaytamaysa baandaa soo gelaysa qashinay sheegaysa ilaa iyo hadda waayo meediyahan aa ujeedid dhinac kastaa kaga isticmaali kartaa laakiin dhinaca ugu fiican maxay tahay weyga ilaahay odoo laba ku fiirsata maaragtay weyga wanaagga ah oo bulshada wax aa ugu qabanaysid oo dadka masaakiinta aa ugu qabanaysid dadka masaakiinta aa ku caawinaysid oo ilaahay dartiisa aa usoo istaagaysid weygaasaa ugu fiican oo hadda anoo hadda ku jira lifekana haddii lacala ilaahay iyo makasi awteedii imaatana oo anoo wax fiican aan sheegayo oo aan ku dhimanayo laakiin ka waran adoo meediyaha ku jirtidoo caytamaysidoo bakti iyo nijaas afkaaga ka baxay haddaa ku dhimatid ka waran because waxaan aragnay 100 qofood oo meediyaha soo galo iyagoo caytamayaan aan aragnay kuwaas ka waran iyagoo caytamayaan wax xumaato dhahaya hadday ku dhintaan ka waran adigoo macnaha faxshi ku jirtid waa laga fiican yahay because ilaahay qabashadiisa waa dhowdahay marka inaan isku farno waayo wanaaga oon isku farno waayo wixii anaga noo fiican bini-aadanka intuu caafimaad qabo uu xayi yahay wuxuu isku malaynaya inuu xoog leeyahay xoogna ma laha ilaaha ka baawar badan laakiin naftaan yaroo nagu jirtaa been noo soo sheegayso waxaan rabnaan sheegnaa laakiin aan ka faa'iidaysana waqtigu waa seef intuusan ku gooyn adiga goo taa aniga maanta muhiimadayda ah taas waaye marka labadan beri dhan waa ujeedeen waxaan wadnay mucaawinaadaan wadnay oo walaalaheena gobolada hadday joogi lahayn hadday xamar joogi lahayn weli waa wadnaa hawsha waa ku dhex jirnaa ilaa hadeertaan weli macnaha shalay toole unbaan aan soo gelin shalayna shaqadaan nagu badneed afur suubisna waan gale afur suubisaan gale anoo labadan beri aan afur suubinino life laysaa usoo galaay shalay waxaa lagu yiri tookadaada waay fadhi maa ii yaale fadhi ima yaale shalay jikadii aan gale xalay waaba suuxaba waaba dhacayba soonka soo u bilowdo weli afur ma suubinin gabadheeda maasha allah tabaarak aa suubinaysa shalay waxay ku tiri hayahe isbitaalay ka shaqaysaaye jaamacad iyo macnaha replacement-ay samaynaysaa waxay ku tiri adaa iska lehi tiri bisha inta hartay yaa naxdin jikadii waxaan noqday sida aan qof wax karis aqooninaan noqday jikadii aan galaye shaldan afuraan samaynaya ilaan ayaantaan dhan waxaan usoo taagnaa waxaa aruurinaya tabarucaadii aan soo galaay tabarucaadii aruurinaaye dhalinyaradii isku tootoosinaaye maasha allah inta wax ku tuur lacagtaan tuur kombyuutarkaasaan ka shaqaynaya iyo taleefon wax ku tuur marka shalay waxaa laygu yiri abbaa sheekada adaa iskalaha laygu yiri jikada maanta aa laygu dhahay gal shalay jikadii aan 9 sac gale xalay waxaan kasoo afur xataa waa cuni waay xalay waxaan kasoo fariistay 1 sac ilaa mar hore iigu dambeysay 1 sac aan kasoo fariistay waaba suuxaba meeshii aan ku dhacay saaka salaadii aan soo kacay because waxaan lahay marka afurka samaysid haddana live-ka gal haddana maxay ahayd toolo maasha allah u fariiso dadkii masaakiinta ah wax u aruuriya isdhahay waaba ii noqon weysaba daalkii aan daala meeshii aan ku dhacay saakiyaa naftii igu soo noqotay ani xataa waxbaa cuni waaya xataa wallahi marka maasha allah tabaarak waxaway hool ilaahay dartiisa aan u haayo waaye oon ilaahay aan u istaagay oo dadkaas masaakiinta oo aan ku caawinayo waaye walaalayaal meel kasto aan joogno aan is caawino yaa qof wax soo qorqorayo haddaan ma ujeedo iisug cabdullaahi maxaa ku qoran intaan kaa fiirina sug inta wax ma ka arkayay sheer gareeya wadaad hadduu ku jiro ha soo qabsado shiiqad gabar ah hadday ku jirto ha soo qabsato wax la dhaafayo malcawada taleefonka meeshuu ku qoraya soo qabsada wadaadkayga cawada wuxuu yiri leyd waay ani ma soo gelayo yiri haddana maanta afuraan suubinayo afurkii waan daala xoogaa maanta waa la qabsaday haddaan soo fariistay afurkayga cuna waa soo fariistay taraawiixaan aadi rabnaa before taraawiix waxaan dhahay halkoo sac ku tuuro marka sug haddaa inta ka fiirina waxaa ii soo qortayaa wiila wax ii soo qoray sug magaciisa maxaa la dhahaa cabdullaahi jaylaani wallaahi waxaad ka hadlaysaa wax la taaban karo runtii sax waaye maasha allah sax waaye because waxa waaye nafta waxay jeceshahay qaraarkay jeceshahay maya macaankay jeceshaan ka wada waxyaalaha macaankoo sida maaragta waxaana loo dirsaninoo shaydaamaan nagu shaqaysanayo mogtahay
caytinta iyo lasoo galaayo iyo balaayo iyo khashin iyo ar ilaahow na soo haday horta meedii waa u dhamaatay meedii eber waa u dhamaatay war ilaahay ka cabsada gabdhow ilaahay ka cabsada is astura adduunka waa laga tagaa sana hore dadaan soomin oo maanta nala soomay oo sanadkan nala soomoynaa jiro meediyaha wax wanaag ha lagu samaysto waxa lagu barto qur-aanka ha looga faa'iidaysto waxyaalo fiican ha la soo geliyo walaalayaal maxaa idinku dhacay gabdhaha soo galaayo qaawan gabdhaha soo galaayo meesha isku gadaayo gabdhaha soo galaayo dharka walaalayaal ilaahay ka baqa shiiqyadina ma ka hadlooyaan mise waa noogeena u malaynaa war ilaahay ka baqa meediyaha ilmo yaryaraa fiirsanayo wax fiican ha lagu qabto yaanan la iska dhigin sheekadii gaalasha camal gaalasha yaanan la raacin tabtii gaalasha yaanan la raacin gaalasha waxay tahay wax ay ka naxayaan male hataa nin iyo naagtooda markay isla seexanayaan facebook ay soo gelihayaan walaalayaalow jooga soomaalidii hadda kusoo dhow jooga facebookii meel laga fiiriyo male war qolalka oo muxaadarada noo badiya qolalka wanaagga noo badiya qolalka wax isku sheega ilaahay ka cabsiga noo badiya taasaan adduun iyo aakhira meel ku gaaraynaaye siyaasad hadday noqotana cid diidaysa male xaqaaga ka hadal adoo caaytamaynin madaxweyne habaaraynin ya xildhibaan aadan kadab goynaynin soo gal siyaasadda wixii adiga kaaga gudboon ood aragtid inaad maxay ahatoole dhib kaa haysto gal caadi hadal joy siyaasadda waxay leedahay khalin iyo buugay leedahay waxyaalo waxay leedahay fiican oo laga hadlo adoo caaytamayninoo dadaa soo galaayo caaytamaayo madaxweyneyaashii caaynaayo rafaadka ka socdo dembigaas asaa loo qoraa asad wuxuu maray wax fiican inuu sheegay kan intelligentiga ah oo akhliga leh oo reer magaalka ah oo cilmiga leh asoonan caaytamin uu xaqiisa soo dhacsanaya wuxuu ka hadlayaa siyaasadda meeshuu ka gelaayo dulaalkuu yaqaana uu ka gelayaa kadibna waa ku jiraan dad badanoo waxaa ku jira siyaasiyiin ah soo gala iyagoo caaytamaynin maasha allah kuwaas beella waay meel fiican laakiin adigoo siyaasaddii aad og tahay inay xun tahay markaad ku riixdid oo tiraahdid waa wixii waa fiican yihiin ama waxaadan ogeyn aad sheegtid dembi adi lagu haysta waa aakhiri adduun waa lagu soo fariisinaa taas aakhiri adduun waa lagu soo fariisinaa marka aan isfarno madame khayr allah kusi waa ila shaqaynaya cali nuur maxamed kombyuutarka waa damayo yiri kolley waxa laan ka daaraayay saliga nabigaan ka daaraa cali nuur aadoo ila shaqaynayaay marka waa kaasa walaalayaalow soo qabsada wacalaykum assalam raxmatullahi barakaatu gabdhaha soo qabsada waxaan rabnaa gabdho wadaade ah oo soo qabsada taleefonkayga meeshuu ku qoran yahay si ay ula hadlaan gabdhaha meediyaha soo galo inay is asturaan oo wax wanaag ah ay ku sheegaan guruubyada qolalka wanaagga ha la badiyo faxsharka bishaan bil ramadaan waay mar kastaa loo baahan yahay laakiin special bishaan bil ramadaan waay walaalayaalow waxyaalaha qaarkood guruubyada ka mas-uul ah hadda guruub waxaa arkaysaa ku qoran guruubka jannada ku qoran waxa ku jira haddii aragto waa yaabe alloor guruubka jannada waaba layskiiga qortale waa lagu qortale guruub jannaaba la dhehee wixii jannada lagu galaayo maa la soo geliyo marka walaalayaalow wax wanaag inaan isku farno waa noo fiican tahay aan wanaagga isku farno aniga taasaan u taaganahay bil ramadaan waaye ilaahay hana soo hanuuniyo nin walba waxaan dhihi lahay nin walba say niidiisa jeceshahay allah u yeelo nin walba dhibka allah ka qaado walaalaheenoo dhibaataysan walaalayaalow caawiya adaa mudan cali nuurow walaalaheenoo dhibaataysan caawiya taasaan u taaganahay tabarucaadda ayaantaan waa aragteen meel kastaan gaarsiinay inkastoo meelo yaryarna ay noo dhiman yihiin oo aan ku guda jirno taleefonkayga meeshuu ku qoran yahay dadkiina la soo xiriirayo whatsapp ahaan iisoo wac waa ka agteydoo yaallaa waa idinka qabanaa waa kan whatsapp ahaana iisoo wacaysiin qofkii rabo waa la qorayaa mar dhow daafeeda masaajidka dhisooyaa magaciyaan soo ogaada maasha allah masaajidka laga dhisaayo daafeed waxaa la dhahaa horta daafeedoo wuxuu u jiraa habeen horaad waxaa 15 kiilo u jiraa 15 kiilo uma jiree wuxuu u jiraa 30 kiilo waxaa la dhahaa tuulada tuwaarey daafeedoo 30 kiilo u jiraa masaajidkaas dhulkuu yaallaa inaan waxaan rabnaa dhexda intaan xirano oo aan masaajidkaas sidii kii aan busley u dhisno kale aan u dhisno inta kheyr ka jecelaan u sheegaya dhalinyaro gabar iyo wiilba inay nagala soo qayb galaan hadda maaha bacdu ramadaan waay waa lasoo wadaa fideoyaashiisa masaajidkana magaciisa waxaa la dhahaa alqudus wuxuu ku yaallaa 30 kilomitr oo daafeed u jiraa tuuladaas dadka dhegan dhan ma qabaan iyagana meeshay ku tukadaan waa masaajidkii busley camal tuwaarey aa la dhahaa tuuladaas kadibna maxay ahaato dhalinyarada ila soo socodsiisa iyo wadaadada ila soo socodsiiyeen waxaan iri soo duuba soo hagaajiya idinkan idinkoo boorkiina wadatiin iisoo dira waa howlgalaynaa iri wiilaa jira hargeysa jooga laakiin waa la ahay maadaama taleefonkii ani aan bedelay kolley hadduu life iga arko taleefonkaanu soo qabsanaa wuu isoo waca asna masaajidaa jiriyoo loo baahnay gogol iyo kutubyo
asaa ila soo xiriiri doona dhib male gabar waxaa jirta marka masaajid kaloo asagana oo meel kale ku yaalo magaciisa ma aqaani laakiin oo looga baahnaa kutubyo iyadana soo dirsatay oo 150 soo dirsanaysa weli ma soo dirsanin maanta ballanta ahayd weli ma aysan soo dirin way soo wadaa insha allah kadib masaajidkaasaa loo geynaa busley waa ka baxsaday tir masaajid kale ii raadi masaajidkaasaan u helay maasha allah tabaarak tiim gaarsiiyana hawsha ay qabteen waa aragteen shalay oo dhan howlay hayeen waa daaleen maskiimiinta maanta gaab yaray galeen inkastoo gaabkaasna oo maarata lacag yar ay haystaan oo shalay usoo dhacday iyo wax maanta usoo dhacay xoogaa kalena waa ka dhiman tahay taleefonka meeshuu ku qoran yahay ayagana waxay qabaan maxay ahayd toole beejay qabaan laakiin maadaama hadda aniga aan fadhiyo taleefonkeyga waxaad usoo diraysiin tiim gaarsiiya $5 $10 wixii alla ka dhigo maanta waa u aruurtay laakiin xoogaa way daadaalnaayeen inkastoo xoogaa yarna ka dhinnaay laakiin hadday geli lahaayeen xataa 50 qoys way u dhammaan lahayd laakiin ayaga xoogaa daalnaa roobna waa da-ayaa la dhahay marka beri ay howlgalayaan marka 120 qoys saa u gaarsiinana ugu soo dara haddaa wax awood u leedihiin tiim gaarsiiya ugu soo dara ها علنك واكنا علنك سومالي واكنا علنك ما جرو كنا أنا أقانا كوكل ما جرو هذا شيء كوكل ما لسوبي واكنا علنك سومالي أنتو كدقيا وكل واسلا وضنا عنك وحنا واسلا وضنا وكاسا كاسوا أنا علنك أنتو يقول دقيا ما وقفوا جيبه أنتو يقول دقيا ويلا درادي سوعي ويعيروا ولا شيء ما شاء الله قبل في عنبات هاي وح في عنبات ودا ما مركا قاركوت سياسة حتى وح في عنبات مارتك كودا قبل دقن باتاي لكن mid baan kugula dagaalsan oo igu yiri markaasaan ku dhahay maxaa dhacay waa inaad calankan ka fujisaa calanka Soomaaliya ku dhajiyo ee kan Soomaaliya ma ina maxaa kan yaa iskale Itoobiya ma iskale Uganda ma iskale Kenya ma iskale Soomaaliya waay calankan Soomaaliya waay soo idinka hadda aqoon ama idin bara markasta xaqo igu suran yahay Uganda ma laha Kenya ma laha Soomaaliya iskale calanka Soomaaliya waay mise maaha wiilkaana haddii soo weydiiyay calanka buluug ku dhajiyo yiri oo Soomaali kanba Soomaali waay maxaa dhacay ninba calana loo gooy 4.5 waa yiri aniga wataa marka ninba calankiisa inoo wato waay waayo dadkayga inay ugu aqoonsadaan aan rabaa aniga kan inay ugu aqoonsadaan maasha Allah tabaarak marka walaalayaal waa kaasa calanka waa la wada leeyahay kaasna buluugna waa ku dhagaya kan waa ku dhagaya kan waa ku dhagaya haddii laakiin la gooy lahayn waagii hore buluuga iska wadan jirnay laakiin Sheikh Shariif ma Allah Xasan Sheikh aan loo gooy macsuubiyaynaay انت قبل اهمبو علن كاسن لو غوغوي حتى هدي علامدي انت لا قادو لا اروريو او مدحوينه حق انتو يمادو او لا يراado calaamadan ma jiraan wax 4.5 la dhahan ma jiraan sheekadu way isbedelaysa calankaas buduu gaal hoos imaana ha laakiin wili calankaana haysanaa astaanta qaranka waa kana astaanta qaranka anaga ugu badanay hada qaranka lagu sheegay bakal leeb waaye qaran kale ma jiro waxa kale buf waay kulli qabiil waay daacad qaran digli mirfa ugu imaanay daacad qaran oo dadkoodina iloobeen say madaxweyne farmaajo leh u daba dhigteen ay u shaqeynooyaan adi wax kala sheegaysaa qofka daacadsan ba ma jirto digli mirfa cid ka daacadsan ma jirto waa kaasa calankaasay wataan dadka calankaas wato waxa waay dadka ugu qaransan waay inta kale wax qaran la yiraahdo ma jirto inta kale qabiiliyan waay inta kale qabiiliyan been la isku sheegooyaa laakiin waxa ugu daacadsan maanta digli mirfa oo dadkoodina iloobeen aanan waxna u qabanaynin oo maxay ahayd toole sidii wax la rabana yeelaynin calankaayada marka ma sha Allah waaye walaalayaalo waa kaasa maxay ahayd toole عادل علن كه كما ويدينن معير ما يعدي ما ويدينن ويل كلا ويديه محمد عبد الرحمن علن كما ويدينن ويل كان ويديه ويل كان علي نور ويديه وعير علن كودجيو ير ما شاء الله تبارك ها سيحه صبري هي انت سو jeeda aniga iga sheekaysanayna صبري الله نبريسيه مع السلامه علنka ku dhibay waa u jeeda hurda ku qabatay seexo bonanote oo dhaha talyaani oo jiro bonanote dad kala ka badan dadkaas ay fiirsanaya bay marka walaalayaalo waa kaasa page waxaan ku soo noqonayaa programkeegi xoogaa iska ciyaar dadkaan wax soo qoreen aan soo galiyay aan ka faa'iideysano maxay ahayd toole aanu orodno maxay ahayd toole sidii aan wax ugu qaban lahayn dadkaan dhibaataysan oo meel kasta joogaan ani hadda dhalinyaro badanaa jirto wallahi jiirada ii soo galo sanadadii hore waxa waaye maasha Allah coronavirus intuu dhicin hawsha waa aad u weyneed howl xoog badan aan qabanayoo maasha Allah ilaa iyo xamar kaamamka $2,000 oo maxay ahayd afraadaan bixinay laakiin sidii hadda coronavirus u dhacay sheekadu waa adkaatay wallahi dadka say lacag ku soo bixiyaan waa adag tahay $5 ninkii laga helo nasiibkiisa hadda maama shalay soo dirsatay khayr Allah siiyo oo xanuunsan oo caawina quraan la saaro ilaahay caafiyo
iigu soo duceeye maamadaas maama batuula waa iga xanuunsantahay iigu soo duceeye inuu ilaahay ii caafiyo $200 ay dhiibata kheyr allaha siiyo tiim gaarsiiye waa ay gaarsiiyeen kaamkiyay geeyeen waxay siisay 25 qoysay siisay maasha allah tabaarak ilaahay ha u aqbalo ducadaas iyo sumeero iyadana 15 maxay ahayd toole qoys siisay iyadana maasha allah $100 soo dirsatay iyo 50 gooni ahaayo oo garowga loo diro maasha allah wallahi waan dadaalnay maanta soonka 7-8 miyaa ma aqaan maasha allah every day maalmaha 2 jeer soo galaya maalintii alxamdulillah ajar ilaahay ha naga siiyo because taasaan aan u baahanahay aniga tan aan rabo waxay tahay tan ilaahay jidkiisii aan ku socdo oo aanan dembina la ii qoraynin oo wixii sanadkan dembi lasoo sameeyay inaan isaga dhaqna aan rabno waay taas waay waxa kale waana looga fiican yahay wallaahi bishaan ilaaha iskale lama taabtaan waay bishaan ilaaha iskale caytin ma jirto waa inaan sadaqaysanaa waa inaan ilaahay ka baqnaa waa inaan qur-aanka ratib u akrinaa waa in la tasbiixsadaa marka ha lagu dadaalo walaalayaalow gabdhahana kolley hadday arkaan aniga beejkayga ay soo galaan ay fiirsadaan insha allah inkastoo saaka wiil isoo waxa igu yiri facebookkaaga ma lagu arkaayo oo igu yiri wallaahi macallinkii waay ha macallin cabaas waay wuxuu yiri ebil markaa ka baxda waa ku arki jirna ayaantan waxaa waay siyaasaa socoto annagii sadaqada aruurinayna xataa feeruusaana lagu soo shubay rafaadaan ku jirnaa xataa markaan ka baxno waxaa la yiri ebel markaan ka baxda waa lagu arki jira waa run markaan ka baxo gadaal wuu isbuuxi jira fiideogayga laakiin hadda xale macallin cabaas oo masaajid busley markaan dhisayna soo qabsan jira wuxuu yiri ayaantan waa kugu wareersanay xaliima xataa markaa soo gashid oo ka baxda ma ku arkay ilaa aniga aan u dir saaka wallahi waa cabaaday marka ilaahan qabnaa mashaakil male inta noo soo gasho noo gaarsiiya sadaqadaan rabna inay kor noo aado dad badanoo waxaa jira wax baxsanaayo aan rabna in loo diro oo maxay ahayd oo loogu sheer gareeyo marka insha allah dhib malaha ilaahay intayna ha noo barakeey intaanba waan shaqayna wiig dhan 8 beri maanta 7 maasoonka wallahi waa shaqaynayna maasha allah maanta kaliyaan gaab galna ay nasteen wiilashii aan anigana shalay nasteen maantana way nasteen ma shalay hoolay qabteen anaa nastay maantay nasteen iiga maasha allah tabaarak berina way sii wadaayaan sababtoo ah taleefanada waxa ugu soo dhaceen $10 $5 maasha allah way haystaan laakiin 50 qoys way 120 qoys kaamkay tegi lahayn marka intii kale oo rabtana inay kusoo darsato maasha allah taleefankayga meeshuu ku qoran yahay dhow markaan ka baxana CVC ahaan waa kusoo dirayaa macnaha waa kusoo darayaa ha lagu soo maaragtay yaaco kii $1 bixinaayo kii $2 bixinaayo waxaad ku roole waaye alxamdulillah aniga UK aan joogaa wax iga maqan mal waa cunay waa mar anaaba kababo aniga iyo team gaarsiiy agaasimiiso Norway joogo wallahi maasha allah tabaarak xirxirowga because raashinka markuu qofka $100 soo dhiibto waa la soo xirxiraa baawura la soo saaraa dhalinyarada basay u baahan yihiin waxaas oo anaga ku qoran wallahi billahi waxaas oo anaga ku qoran waa cover gareeya sadaqa allah nooga dhigo maasha allah intaas aan u taagana alxamdulillah dadkaas invisible ka ah oo joogaan gobol kasta hadda waxa iigu jiro beejka hooyo beled weyne joogto gabaraa iga ballan qaaday waxay tiri wiiga dambe waa wiigan insha allah iyadan ay usoo dhiibta allaha kaso hooyadaas iyo aabbaha maskiinka oo meesha ku jiro ayagana waxaan rabaa inaan maasha allah aan videogiisa meesha ku jiro because qofkii aan videogiisa soo gashta ani waxbaan siiyaa waxaa ku jira hooyooyin kaloo reer garoowe iyagana ilaa iyo hadda waxba loo mehelin laakiin way isaga sii jirayaan haddii wax loo helo waa kaas haddii wax loo helina waa ka bixinaya because ani waxaan jeclahay meesha qadkayga ama beejkayga kan ku jiro waxaan jeclahay inaan wax siiyo haddaanan awood u lahayn ama aan u waayina waan ka bixinaya ma ku sii haynayo inaan kasii bixiyaan jeclahay waayo markaan siinaayo markay soo qaylinayeen iyo markay aan siiyey labadaba waa isku geeyaan waa soo geliya iyadoo video ahaan proof iyadoo ii ah waana soo geliyay maalin horeed maasha allah tabaarak marka walaalayaalow kheyrka aan sifarno kheyrka wax dhaamo wallaahi malaha dad soonkii hore nala soo soomay maanta ma joogaan hadday ahaan lahayn doqoyshin hadday ahaan lahayn gabdho yaryar hadday ahaan lahayn niman hadday ahaan lahayn waayeelo waa baxeen ma joogaan soonka dambe inaan gaarayn allahu aclam ha laga faa'iidaysto bishaan waa bisha ugu fiican oo aad ka faa'iidaysanaysid waay taleefankayga meeshuu ku qoran yahay kii wax u soo diraayo kii ugu soo ridaayo kii maxay talo dooranaayo dhahayo garow kaamumkaan rabaa kii dhaho beledweyne kaamumkaan rabaa 3 leeba iigu jirtaba kaamkii garoowe iyo kaamkii dadkii laakiin waxay u badnaadeen kaamkii baydhabo oo aad loogu baanaay aad loogu badnaaday lacagtii ugu dambeysay shalaya $300 shala loo qeybiyo dadka aad waxay ugu badnaadeen baydhabo maasha allah 2 kaam wax la siiyey laakiin hadda garoowe xataa kaam yaroo waxaa jiro oo dadkii kaamku waa weyn yahay laakiin 10 qof camal ay soo qaadeen gurigay keeneen meelay keeneen oo maaragtay oo kaamka dhexdiisa ah ay kusoo duubeen waayo haddaan kaamkaas oo dhan soo duubto waxba uma haayo marka mana rabo ani dadaan waxba u haynin inaan beejkayga soo gashto xaaraam waayo 10 qof camal waayo 10kaas qof camal insha allah
ilaa soonka waa lasaga helaa iyagana waa la qaarijinaa insha allah waxooda waa la siinaa marka walaalayaalo walaalaha kaloo waxaa u sheegaya maasha allah jiirada iisoo galo oo mar walba i weydiisto i dhaho walaasheedii because ani groupka waxaa iigu jiro ruulkayga waxa waaye wixii aan soo gashto internetka maaragtay beejkayga ayaan wax siiyaa laakiin dabal waxaa jiro dad jiirada iisoo galaan oo i dhahaan waxbaan u baahannahay noo soo dir ama maxay tole video dad kale kasoo duubayaan that is not my role laakiin haddaan awood u leeyahay waan sii lahay kama xasdi lahayn laakiin ma haayo waagii hore waxay ahayd maasha allah tabaarak anoo sheekadan ku jiro dadka oga aruurinaayo oo dadkii onta oga soo qaado wax siinaayo ayaan bulus waxaan aniga jeebkayga ka bixiyay kii jiirada iisoo gala aan siin jiray maasha allah tabaarak laakiin soo coronavirus u dhacay wixii dhan istuk ay noqdeen hadda dadkii marka wixii jiirada aan siinayo ma siin kariyo dadkii oo lasoo duubay oo la caawinayo ayaa waxay u baahan yihiin koodar baskii in laga bixiyo wiilasha markay bajaaj ka qaadayaan bacyaasha juuniyaasha lacagay rabaan wixii oo dhanaa layga rabaa haddii ugu bata 20 mar walba aan bixinayno wax aniga iyo tiimka gaarsiiye oo norway qaar allah siiye 25 ugu yaraan waa naga baxdaa qof walba wax soo dirsado min 25 aan ku darnaa wallahi qof walba shalay ugu dambaysa lacag aan ku darnaa aan ku kabnay maanta hadda wiilasha waxba heleen waa loo tuuray waxay dhaheen waa iska nasanaynaa beriyay soo galaan laakiin waxaan u malaysaa xoogaa hadday heli lahaayeen moor 120 kaamay afurkooda soo siin lahaayeen ayagana insha allah way iska helayaan mashaakil ma laha wax walba waa qadar ilaah waxaana ilaahay ahaayo irsiqaana ilaahay ahaayo annagana waa u dadaalaynaa haddaan helnana waa siinaynaa haddaan waynana dee waxmaba dhib maba jiraba because ilaahay wuu noo jeedaa waxba kama hakranin because waxaa daran adigoo og dad baahan inay jiraan oo aad ka seexatid adigoo og inaad wax u qaban kartid at least aad u hadli kartid xataa haddaad siinaynin intaad u soo gashid facebook ku fariistid war walaalayaaloo dad gaajaysanaa jiray hala caawiye taas xataa ajaray kuu tahay haddaad wax siinayna xataa aa u hadashid ajar weynay kuu tahay ani marka labadiiba waa isku hayaa waana u hadlaa wixii soo aruurana waa siiyaa maasha allah tabaarak ilaahayna waxaan ka baryayaa biidni illah dhalinyaro badan hadda waxaa soo baxda waxaan arkay xamar saasoo kale wallahi khayr allah siiyo dadku u taagan aruurinaayo lacago loo tuuro hagaajinooyo maasha allah ها السلام عليكم هلا السلام عليكم عليكم السلام ماما حليمة جيلاني ما شاء الله كسع ماما تاي وقدوميها تيم غارسيا ايه ما شاء الله كسع قدومي ما شاء الله هي ما انت حوغا قابا قشين بل كشيكي ما انت إنه هرتا ماما ما سنتهاي وحان كاغا مدعلنا ساعدة oo la joogo dhinaca Soomaaliya marka la eego waxay hadda saacad u tahay 6 saac waa xilli dambe dadku dhan way jiifaan saacada waxa ay soo jeedo waxay tahay sidadkaas reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka barakacayaasha ah ay u cuni lahaayeen afurka waxa ay dadka kale cunaan oo aad halkan ugu raadinayso oo dadka ugu qaylinayso waan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale lacagaha inta badan aan tiimka gaarsiiye soo gaaraan oo dadka aan afurinta ugu sameyno ariga aan ugu soo gadno waxay nagu soo gaaraan hay'adda qalbi foundation oo iyadana dadaal ku bixiso si dadkaasi loo caawiyo iyadana waan u mahadcelinayaa sidoo kale maama waxaa jirtay maalmihii lasoo dhaafay 2 maalin oo keliya ayaan gaabis galnay maanta ayaa ugu dambeysay oo aan gaabis aan dareennay maadaama roobna uu da'ayay sidoo kalena lacag yari ay iska jirtay maadaama dad badan na soo caawiyeen qaarna ay markaasi nagu dhiirigeliyeen howsha aan hayno maanta roob ayaa da'ayay laakiin waxyaabihii loo baahnaa waxay ahaayeen kuwo diyaar nagu ah arigu waan diyaarinay raashinkii waan diyaarinay khudaartii waan diyaarinay laakiin roob ayaa da'ayay maanta markaan gaabiska galnay iyo maalmihii kaleba dadkii kaamka aan u ballan qaadnay inaan afurinta u sameyno wayna soo wici jireen waxayna dhihi jireen aaway maanta balanteenu ay ahayd afurinta aanoo sameynayeen aaway marka weji aan kula hadalno ayaan weynay marka waxaa waay dadka barakacayaasha ku jira baydhabo aad bay u dhibaataysan yihiin maama waxaa dadka muxsiniinta ah in waxyaabaha lagu caawin karo dadkaasi ay la soo gaaraan halka doorar 5 doorar 3 doorar qofkii dhahayo kaamkan ayaan afurin karaa maasha allah waan u baahannahay tiim gaarsiiye howsha ay hayaan waa si aad sheegtay waxaa waaye tiimkaasi waxay u taagan yihiin si dadka masaakiinta loo caawiyo bajaaj raacigi iyo waxaa koofargareeyo inta badan agaasimaha gaarsiiye weliba adigoo xaliimo ah marka waxaa waaye aad bay u dhibaataysiin dadka kaamka ku jira waxaa loo baahan yahay in loo gurmado
waan kaaga mahadcelinaya saacadan aad soo jeedid oo dadka masaakiinta wax u raadinayso hooyo waa mahadsan tahay haween wanaagsan ramadaan kariim waay macaan adaa mudan maasha allah tabaarak maasha allah tabaarak waa guddoomiye tiim gaarsii maasha allah waa dhalinyarada u taagan asaga iyo maasha allah tiimkiisa oo u taagan inay caawiyaan hooyooyinkaas waayeelada ah aan waxba haysanin iyo dadka diseeblada ah oo intay u tagaan xitaa hadday iyaga waxba u haynin maskaxda usoo dejiyo dhahaan maama dhib ma leh wax walba waa la idiin keenayaa waxba ha welwelina maasha allah ayagoo maarata qalbigoodana usoo dejinayo dhahaayo kuna tashanaayo macnaha wixii markaas aniga aan intaan soo fariistay iyo wixii ayaga taleefonkooda kusoo dhaco iyo wixii aniga taleefonkeyga kusoo dhaco ayagoo ku tashanaayo ayay maskaxda usoo dejiyaan ay dhahaan maama iyo maaragtay aabbayaal isdejiya insha allah waan idiin siinaynaa wixii aan soo helno waxba idinkama hakaranayno micnaheedu waxay tahay maasha allah tabaarak taas micnaheedu waxay tahay lama helo badanaa dhalinyaro saas u firfircoon waa dhif waaye marka ilaahay waxaa uga barya ayagana sayniidooda jeceshahay allah u yeelo waa howl aad u adag ay haayaan waayo qoraxdii oo kulul maanta unbaa roob u da-ay xoogaa ay qaboobeen maahina qoraxda waxaa layiri babababa ilaa ay xana horta rooba da-ayaa layiri ilaahay qaboojiyo because meelo waxaa jirto oo aanan biyo haysanin waraab aanan haysanin marka roobku markuu u do-o maadaama ay soonaayeen way qaboobayaan ilaahay waxaa uga baryay inuu ilaahay qaboojiyo marka waa kaasa walaalayaalow tiimkaaseti waa ay taagan yihiin waa tiim aad u fircoon oo jecel aniga meesha aan ka bixinayo raashinka aan maarata aan jeclahay inaan ka bixiyo ceeriinka ayaga waxay jecel yihiin kabacdi inta soo harta inay ku koofar gareeyaan inay raashin biseel inta siiyaan neef intay u qalaan soonka soo bilowda ilaa hadda neefaan qalayna maasha allah tabaarak roobkan hadda aa ujeedid xataa neefafkii aan qalno waay masjidil busley neefaa lagu qalay xamar waxaan u malaynaa qaarkood haa in la qalayaan jeclahay haye ramadaankii neefafkii la qalay roobkan hadda imaanaya ciyaar maaha because waxa waaye ducooyinkiiyaan badine hadda kaaneeti oo aan raashinka siino maalinba qadaa la siinay maalinba neefaa la qalay inta annaga raashinka ceeriinka bixinayna debel waxaa noo ahay maalinba hal neefaa la qalay mar laba neef mar hal neef laakiin wuxuu badnaa halka neef maasha allah tabaarak marka taasna macnaheeda waxay tahay alxamdulilah inuu ilaahay qaboojiyey uu roob u keenay ilaahayna nimcadiisa ha u badiyaan dhihi lahaa dadka reer baydhabo dadka xamar jooga oo iyagana kuleylka meel kastuu jiraa because waxaa jiro dad badanoo waxaa jira hadda baydhabo intay kasoo baxeen xamar tageen oo iga soo waceen oo ay dhaheen roobaa ka da-ooyo oo keliya ma ahan baydhabo xamarna wuu ka da-ooyaa maasha allah tabaarak marka wax fiican waaye marka waxaan u taaganaha walaalaheennaas dhibaataysan waxaan cunno anagama weynin wax naga maqan male shalay toole waa kaasa qof walba waxaa waaye dibadda jooga wuxuu rabuu suubsadaa wuxuu rabuu cunaa birima sugunta teersaa suubsane maalin baastaa karsane maalin bariisaa karsane waa ku enjoy garaynaysaa laakiin dad aan jirin waxba haysanin dadkaas waay dadka aniga ah iga qalbigayga aan ku yaalo oon rabo inaan maarata aan la qaybsado dhibaatada haysato ama dhibka haayo ama maxay ahayd toole afur la-aanta haysato inaan la qaybsadaan rabaa daa'is waay waxaan saacaddan usoo taagana oo aan jeclahay dadkaas inaan garabkooda noqdo meel kastoo ay joogaan dadkii waa badan yihiin ma la wada kaabi karo laakiin wixii annaga karaankeenna ah aan dadaalaynaa because dadku waa badan yihiin meel kasta waa lagu dhibaataysan yahay kulligood ma wada dabooli karno laakiin waxaan u istaagay ilaahay wuxuu yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa waasicuhaa intii annaga karaamkeenna oo aan ku dadaali karno uun baan ku dadaalaynaa maahane waxaan buuxin karna mar ilaaha buuxin karo ilaaha gaajadooda buuxin karo ilaahay say iiga jeceshaa u yeeli karo tii ilaahayna inaan ugu darno waay oo u duceyno oo keliya ma ahan wax siisma ani saasaan dhaha mar kasta wallahi ducana waa ugu daraa marka waqtigan hadda aan soo galay waxa i soo geliyey waa iyaga dartooda bal in taasoo wax aan u helaa waayo markaan ka baxay dadka qaarkood intana soo wacan maasha allah waxay dhahaan waan helnay macnaha taleefonka kii 5 kusoo rida iyo kii 10 kusoo rido maasha allah dhinacaygii dhinacoodaba hadday yihiinba waa noogu imaadan dadaa gadaal nagala soo xiriiro dad jecelaa jiro sadaqada jecelaa jiro maasha allah tabaarak khayr allah siiyo dadkaasna aadan ugu mahad celinaynaa oo ilaa iyo hadda nala shaqaynaya dadaa xataa soo biisbiistay dadaa dabal soo dira dabal wallahi marka shiiqaynana caawa wuxuu yiri waqtigaa soo galaysid am very sorry waqtiga aniga aan joogo waa duhuradii casradii yuu yiri waa markii annaga noo tahay duur waay waqtiga aan u istaagayo waaye inaan afur sameeyo waay ayuu diyaar yahay marka wallahi aadan uga xumahay asagana macno ma laha mashaakil male aniga marka hadda waxaan dhahay bal wax yaraa dhiman taraawiixda intaan la gelin cishii ka bacdiyaa la taraawiixoona baawurkeena lay qaadanaynaa waxaas ir bal sii gal sii guubaabi dadka wax u sii sheeg ha ka soo qayb galaan tabarucaadan taleefankayga meeshuu ku qoraya mar walba waa ku dhaafaa dadaadna lasoo kontakto gareeyay whatsapp ahaana usoo wace kow qofka horta kow whatsapp ahaan inuu usoo waco waayo kool ahaana haddaa usoo wacdid waa kaa qabanaa whatsapp ahaan haddaa usoo wacdidna waan kaa qabanaya maasha allah labadaba available waaye agtayduu yaalaa kadibna
maasha allah tabaarak qofku wuxuu rabuu sheegaa meeshuu u rabuu sheegayaa hadduu ilaahay nafta nagu simo meeshuu u rabaana loo geyna hadduu dhahana cashada wiilashaan u rabnaa oo ka bixinayaan tiim gaarsiiye wiilasha cashadooda loogu daraya kii 5 kusoo darsado kii 10 kusoo darsado iyo kii maxay ahayd oo kusoo darsado maasha allah tabaarak wixii ka badanba marka walaalayaalow hala dadaalo dadaalka aan muujino aan caawino dadkeena aan caawino waa tabaalaysan yihiin walaa aad u dhibaataysan yihiin inaan caawino garabkooda istaagno waay saasaan usoo galay anuu og inay waqti dambe too gabdhihii dheenaa waa bixina taraawiixaan u socnaa waa is diyaarine habeen dambe nooga dhig waxaan macno ma laha iri nuskoo saacaan galayaan iri waa kasii daynaya iri haddana waxaan iri beritool insha allah waqti fiican anoo wadaadkii wado asoo wadaadkiina noo duceynaayo waayo wadaadka maasha allah mar walba waxaan usoo qabtaa in su-aalo la weydiiyo commentiga xataa qofkii rabo inuu su-aalo weydiiyo wadaadka commentiga ha iigu qoro su-aalihiisa waa u gudbinayaa biidni illaahi kariim waxaa kaloo jirto walaalayaalow masaajid oo aan dhisnay aad ogeedeen busley asagana dadaa ka ballan qaaday inay afurka bixiyaan masaajidkina xooga ayaantan gaabuu galay ayagana hadday maarata ku darsan karaan ha ku darsadaan masaajidkaasiyeti ninkii raba inuu ka baxsado afur oo kale maasha allah wacalaykum assalam waxmatullahi barakaatu gudoomiye maasha allah tabaarak marka teleefonkayga meeshuu ku yaalaa whatsapp ahaan iisoo gal meeshaa u rabtid soo sheeg waxaa dhahaysaa waxaan u rabaa garoowe waxaa dhahaysaa waxaan u rabaa beledweyne waxaa dhahaysaa waxaan u rabaa baydhabo kadibna tabarucaadda kusoo darsada ha laga faa'iidaysto mar walba ani saasaan kusoo qoraa mar walba waxaan kusoo qoraa war ka faa'iidaysta intii la noolyaha qofka markuu dhinto oo god galo ha la ii celiyooy qur-aanaan soo akrinaa sadaqaan soo baxsanaa haddaan soo wax soo qabsanaa cid ka yeelaysa male hadda intay nafta kugu jirto oo aad xayiga tahay oo aa caafimaadka qabtid walaalahaaga kugu ag dulman oo aanan haysanin waxay ku afuraan ha la caawiyo dadkaasaan u taagana wixii ramadaan ka dambeeyo waaba iska nasiibkooday baqabaan meelahooda waan ku salaamay gudoomiye maasha allah noo sheer gareeya beej kasta kii mar walba waa dhahaa xamar waxaa jooga dhalinyaro badan oo igu xiran mar walba waxaan dhahaa hidiinaan bixin karin sheer gareeya noo sheer gareeya fiyuugu waxaaba kasii fiicanba markaa sheer noo dhahdiin haddii arabtiin hana fiirsanina laakiin qaada beej kala geeya qaada bokas kala gurida qaada guruubyada noo geeya sina loo arko oona loola soo kontakti gareeya sidii caadada aheedba gadaal markina laga arkaa kontaktina lagu soo sameeyaa marka walaalayaalo waa kaasa ayaantan waa la iska caajisan yahay soonkiya dhexdhexdanoo bilowga 10 ugu horeysaan marownaa waa la daadaalan yahay laakiin saas ay tahay masaakiimiintas annagay kor noo soo fiirinooyaan wayna sugooyaan weliba annaga waxaa naga sii daran tiim gaarsiiya wiilkan hadda suu sheegaya maasha allah markay tagaan waxay leeyihin haye maxaa noo wadiin haye maxaa noo keenaysiin kuwaana ma aha kuwa kaarar haysto waa kuwa bilaa kaar e waay kaamanka waxaa jira kuwa kaar haysto waxooda meel u saaran iyo kuwa aan kaar haysanin kuwa anaga marka aan xoogaa aan caawino garab siino waa kuwa aanan kaararka haysanin waaye oo meel waxbayna ay ka sugaynin cidna u maqneen ceelna u qodneen marka sidaas ala adligeeda walaalayaalow aan ka faa'iidaysano waxyaalaha la sameeyo oo meediyaha lagu sameeyo lagu ololeeyo waxa ugu muhiimsan oo ugu fiican oo ajarna aa ka helaysaa oo ilaahayna maaragtay kuugu nimcaynaya adduuniya aakhiro adigoo ku ololeysid in qof walaalkaa ah haddaada waxba u helin xataa aad dadkii ku baraarujid inay wax baxsadaan sida shiiqyada soo galaan maalin kastay ku baraarujiyeen shiiqyada waxay dhahaan war wax baxsada ajaladooyin sadaqaa jirto oo laga soo geliyo war wax baxsada gacantiina fura sadaqada aaday u fiicantaa dhahayaan kuwaas xataa qofka hadduu dhegeysto xoogaa qalbigiisa u jilcaayo adliista kuwaas xataa dhegeysta qalbigaa idiin jilco annagana waxaan u taaganahay saan u caawin lahayn dadkaas masaakiinta ah wallahi hadda garow waxaa noogu jirto wuxuu soo duubay gudoomiyaha waaka waa ku jiraa hal gabara waxay soo jeclaatay bis islaam waayeelow disable dhulka fadhisa bis intii kale wayna sugayaan islaam waayeela iyo wiilkeedu waalnaay ayaa wax loo dhiibay maasha allah $50 gabar usoo dirsatay khayr allah sii waa loo soo duceeyey laakiin dad kala group kala isla jireen groupkaas waxay naga sugayaan inaan gacan qabanno ayagana waa na sugayaan iyo groupkii waxaa na sugaayo maamo cunug haysato iyo aabo waayeel oo beejkayga ku jiro oo joogaan beledweyn gabaraa iga ballan qaaday laakiin waa is too far waay before haddaa dad aad aragtiin macnaha haddaad aragtiin beejkayga ku jirtaa aaday u dhibaataysiin haddaad maarata nagala soo qaybgelaysiin walaalayaalow lambarka markaan ka baxon kusoo qoraa EVC ahaan meesha ha lagu soo diro biidni illaahi kariim hawsha saasay u socotaa saasaan u socodsiinayaa aniga insha allah biidni illaahi kariim khayrkii aan u istaagay ilaahay ninkoo nuurkiisa siinayo gooni waaye ramadaan markii laga baxana masaajidkoo daafeedaan rabaa inaan dhiso hadduu ilaah naftan ku simo aan usoo galaa usoo fariisanaa saa masaajidkaas u taagi lahay biidni illaahi kariim sidii kii busray aan u taagnay un baan u taagaynaa waxba ma weynayno waa helaynaa
ارزق من الله واي إلهي مسلم كاسيتي ونوصو درايا وانا لتاغا بإذن الله كريم مسجد كاس مارتا دافيدنا وانا لتاغا marka waxa waaye gacmaha isqabsada walaalayaal walaalihiin oo dhibaataysan gaajaysan hala caawiyo ani inkastoo meel kastaba aan ka caawinayo meeshay ahaato haday beledweyn kaamkeeda ahaato haday garowga kaamkeeda ahaato daafeed ilaa hadda waxba ma u dirin wallahi because daafeed kaam male alxamdulilah waa iska leedihiin laakiin dad yar yaroo waxaa jiro aanan afurka haysanin maahane daafeed kaam male alxamdulilah waa leedihiin beerahooda iska fashaan alxamdulilah laakiin meelaha oo kaamamka aad u dhibaataysan sida kaamamka garowga ku yaallo kalo sida eriga camal dadka inta loogu xareeyay laga dhaqaaqay waa la yidhi hay-adaa keenta hay-adina waa ka dhaqaaqdaa la yidhi sida kaamka beledweyne oo kale ayagana saas camal waxay uga buuxaan kaaman sida kaamka maxay ahayd toole baydhabo oo kale horta maa cadadna inkastoo kaamanka waaweyn anaga aanan tegin kaamankaas raaxayba ku jiraan la yidhi kaararayba haystaanaa la sheegaya kuwaas ani shaqadee maaha kaararka haysto laakiin kuwa masaakiinta oo aan dhowr jeer wax siinay oo invisibilika oo kaamiraba aanan tegayninbo kaamira xataa ma tagtaa lagu leeyahy wiilashaan maasha allah meelaan kaamira tegaynin ay tageen iyagaa noo soo duubeen maba la arkaayo because kaamankaa kale kaaman waxaa jira magaaladu ku yaala kan duurkuu ku yaala baadiyuu ku yaala ay tageen wiilashaan maasha allah kheyr allah sii tiim gaarsiiye ay noo soo duubeen ay noo soo arkeen marka walaalayaalo way qaraar tahay markaad diibaysa sadaqo because la jecli dadka waxaa si wax loo gatay yaqaaniin wax loo naftooda loo war sida adin naftaada aad u gelinaysid qarashka qofka masaakiinka daa u gelisid dabalaa kusoo galaayo wixii adi aragta ka badanaa gadanaysaa wallaahi taas anaa idiin huma anaa arkay wallaahi hadda gabar isoo wacda maalin hore waxay dhahaysa wallahi inaan baxsadaan raba ma haystiye waxaan haystaa igu tiri alla maxay rabta inay baxsato ha waxay rabta kutubay rabta inay baxsato sax waxay tiri an wax ma haystiye konton lee haystaa laakiin 15 kutubin inaan baxsaa waxaa yiri sadaqadaa iri adaa arki doontidaa iri waayahey tiri kontonkii soo dhiibtay sadaqay ku baxsatay lacagaaba waxay tiri lacagan filaynin oo mar hore aan dalbadiyo aan waayaaba helay tiri saas waay because sadaqada markaa bixisid moor a gacanteeda furtid moor ay kusoo gelay marka walaalayaal waa kaasaa aniga taasaan u taaganahay maasha allah tabaarak waxaan rabaa soonkeyga inaanan bakti iyo najaas ku afurin inaan masaakiintaas aan u istaago aan caawiyo oon wax alla wixii awood aan u leeyahay iyo jeebkayga aan kasoo bixiyo iyo waxaa idinku kusoo caawisiinba inaan ku kaalmeeyo weligayna saasaan 3 sanaa shaqadaan wadaa 3 years aan wadaa 3 years aan wadaa 3 sano aan wadaa maasha allah tabaarak waayo waa aaday muhiim u tahay waayo bisha keliya waxaan haysanaa oo qof walaalkaan aa caawinaysid maxay ahayd tolsoonkaagana aa ku gudan kartid qur-aankaaga waxaa oo dhan ilaahay waa isku kaa dhammaystirayaa laakiin af keliya aan xiranaa sadaqana ma dhiibay sadaqada reerka gabadha maalin waxay tiraan dadkaygaan siiya dadkaaga sadaqa ma aha dad waxay isku tihiin waaye kan sadaqada aad siinaysa waa mid aan ku eenaa la rabaa inaad siisid kan kale waxaa isku tihiin kaas xaquu kugu leeyahay kaas sadaqa miya xaquu kugu leeyahay taas masta waaye ingiriish mastay dhahaan taas waa inaad siisaa khasab waaye waa gibilkaaga waaye laakiin qofaadan aqoonin oo gaajaysan markaa siisa taasay sadaqo kuu noqonaya laakiin tan aday waxa waaye walaalka ina adeerka ina habreedka ina eedada kaas waa khasab waaye taas maba ahanba tuugmaba taas inaad bixisid waaye taas sadaqa maba kuu ahanbo taas waa qaraabaa la dhahaa sadaqa qaraabaa la dhahaa taas waxaa waaye waa lagugu leeyahay sadaqa kuu ma aha taas waa mid adiga masta ku ah laakiin tan oo sadaqada oo la rabo oo aad kaga naxsanaysid dadka masaakiinta waa qofka aadan aqoonin waaye qofka aadan aqoonin markaa sadaqada kaga naxsatid waxaa helaysaa wax maaragta maasha allah oo adiga aadan filaynin iyo mashaakil kuu soo socday aa ilaahay kaaga qabanaa maasha allah maxaa ka fiican marka wax ka fiican male marka walaalayaalow maasha allah tabaarak khayr allah idin siiyo noo sheer gareeya beej kasta noogu rida 10keena iyo 3deena iyo 4teena iyo markaa noo sheer garaysiin laakiin moor hadda cajal daraad aan soo gala maasha allah ilaa xooga uu sii socdaa inkastoo ayaantan waxaa la sheegoyaa oo maba lagu arkaya baliidhooyaaba I don't know waa la dadku way sheer gareeyaan way ku ridaan wiilna wuxuu yiri may waa lagu jeedaaye way iska hadlayaan igu yiri wiilna hadaa weydiiyo asagana Facebook wax ka yaqaan maxaan ka aqaanaa macallinkii aan soo qabi jiray wuxuu igu yiri markaa soo galaysid iyo markaa ka bixaysid ma ku arkooyo yiri waaba yaabanaha marka insha allah hadaa Facebook kalaan lahaayaan raba inaan ka soo galo laakiin waxaan dhahay kanka galbal kaagile ku sii wad maadaama kaagile already dad kuugu jiraan asray meesha la sii wad 3 years yes Sheekh Maxamuud Cabdigaas 3 year aan wadnaa shaqadan ما شاء الله تبارك هذا نغيراتي لكن نوما يرى ما شاء الله تبارك سنة وفيعنا وأن واحد بحنا وحيهات الله بس أنا كور
ها لما سنة كور سنة كنا صار في كورونا فيروس وابل فديبة لما سنة كور إلا يحمر يونيفرسال تي في وإحنا حكبحنا ما شاء الله وسنة كنا وقف في عناوة oo shaqooyin kana aad u badnaayo maalmahaas oo waliba annaga xataa marka dadka aan ka soo aruuri aniga xataa mooran ku dara maasha Allah tabaarak ilaahay sadaq Allah nooga dhigo marka walaalayaalo ka faa'iideysta lambarkayga meeshuu ku qoran yahay EVC ahaan waaye qofkii ku soo ridaayo ha ku soo rido qofkii oo isoo wacaayana WhatsApp ahaan ha isoo waco ha idhaho walaalay qor waxaan u rabaa kaamka garoobe waxaan u rabaa kan beledweyne waxaan u rabaa kan baydhabo waxaan u rabaa wiilasha gaarsiiyo cashada fudud bixinaayo cashada afurka bixinaayo because maalin kasta gaarsiiyo neefay qalaan hadda bilaash ma umalays baydhabo inuu roobka uga da-ay maalin kasta neefaa lagu qalaa kaamunka wiilashaas kheyr allah siiyo neef qalow saa u bilowne yaa geel xataa masaajidkii busley lagu qalo roobaa bilowda meeqaan lahay hala duceysto masaajid busley waxaan ku dhahay aniga maalintii xasan oo usoo duceey digli mirifaan ku iri wallahi waa loo soo duceeyo yiri maalintii geelka la qalo maaragtay intaanan soonka la galin oo la duceysanayo loo soo duceeyey marka usoo duceeya dadkaas iyagana waa iska jamala jaan waaye meelay u socdaan iyo meel kale malakala ogee soo duceey ninba waxaa iri kii bari lagu tuuray iyo kii waqooyi lagu tuuray iyo kii koonfur lagu tuuro noqday isku af maaha iyaga dhanba afafkoodiiaba la kala jeediiba wax lagu sameeyey ma aqaan marka waxaa samaynaysiin walaalayaalo annaga waxaa noo muhiim masaakiintaaseeti oo aan waxba haysanin waayo soo gal qayli yaa meel hool u baahanaa layiri hadal wax maka taraayo ani taasaan u istaagay mar kastana waa dhahan ereyeyga waa kusoo qaataa meel hool u baahan soo gal qayli qaqaqaqaqa dembina waa kuu yaalaa waxna ma lagu suubinooyo waxna ma qabanayso tanaaba iiga fiican oo ajar iigu jiraay anig tan aan qaylinooyo ajar waayo war waxa la baxsadooy war masaakiinta waxa la siiyooy war dadka hala afuriyooy aan dhooya tana ajar iigu jiraa meel hool u baahanaa layiri hadal wax maka taraayo hoolay u baahan tahay gacan siis dadkii waxay u baahan yihiin dhaqaale loo aruuriyo masaajidda waxaa jiro dad meelay ku dukadaan aanan haysanno cilmiga diinta in kor loo qaadaa la rabaa hadda dadka baadiyaha joogaan sida daafeed baadiyihiisa oo kale baydhabo dad waxaa arkaysaa qur-aanka xataa si fiican aan u kasaynin hadda aniga xasan daraad waxaan ku yidhi dhinac dugsi ha laga furo meesha tuulo waaye nimanka iyo naagaha dugsi kale haddana masaajidka ha laga dhex dhigo intii dugsi laga furaayo meesha naagaha ha loogu akhriyaan dheh qur-aan ha la baro dad waxaa jira aanan qur-aankii aqoonin dad waxaa jira markay dukanayaan salaadii aqoonin dad waxaa jira aanan maxay ahayd toole iska soomayaan xataa oo shuruudaha iyo xataa ka sayna dadkaas dhan cilmigii in loogu horseeday rabaan laakiin cilmigii meelihii lagu baran lahaa ayaa naga dayactirneen waxaa la rabaa in la dhiso jasta keliya baadiyaha la rabaa in la dhiso baydhabo waa ku yaaliin masaajido laakiin magaalo keliya lama rabo baadiyaha waxay u baahan yihiin masaajidaha la badiyo dugsiyaasha qur-aanka la badiyo daafeedoo kale baadiyaha hadda tuwaareeyaan rabnaa inaan ka dhisna masaajid dhallinyaraa joogta dadaa degan masaajidka dad badanaa degan ma haystaan masaajid lamayeeriyay soo wareejisteen biyaa usoo galooyo waa rafaadsan yihiin in loo hagaajiyo waay ajaraan ka helaynaa meel hool u baahan hadal wax maka taraayo kaasaa ajar adduun iyo aakharo oo hadday teena noo imaatana dee hool fiican annagoo ku jirnaa dhimanay laakiin ka war annagoo qaylinayna qaqaqaqaqaqa iska qaylinayno waxna noo qabsamaynin ya siyaasadoo meelay u socod iyo meelay ka socdo warba loo helino oo iyada dhanba isku dhex darsan oo maantana aan u qaylinayno oo dadkiina ay u baahan yihiin masaajid dadkii ay u baahan yihin wax walba la dayactiray waddan dadkiisaa dhistaa layiri baraawadan hadda la sheegayo eelaboorka baraawe hadday intay hirdigeli marf intay u istaagto bokis samaystaan $1 la aruuriyo mar horaa la dhisi lahay buuq iyo rabsho la-aan wallahi madaxweyneba uma baahno businesskooda iska geli lahaayeen alaabtooda usoo degi lahayd waa la nimcaysan laha yaa kuu ka saaye qaylalee lagu jiraay ma yaqaaniin si wax loo aruurso dadka kale waa kaasaa waxaa dhuusa mareeb waa la dhisayaa layiri eelaboorka dhuusa mareeb maasha allah waa dhisteen dadkaas eelaboorkoodii ay taagteen waa la dhistay hadda waxaanba arkay wiilal raxweyn ahba ka shaqeeyaana arko maalin hore video laga soo geliyey maalintii la dhisaayey wiilal raxweyn ah ka shaqaynaayeen oo dhisaay wax ka dhisaayeen oo qarash ku qaadanayeen haye qaylale maan ku jiraynaa maanta dhan marka dadkiinaaba dayacanba meelaha ku daadsan waxa u aruuriya caawiya at least ani taasaa idin dhihi lahaay marka walaalayaalo waa kaasaa kharaarba ha noqdee runta in la idiin sheego waay wallaahi yaa warkaan haba kharaaroobee inaan runta idiin sheego ani runta la iigu imaanaysiin hadda kadib wallaahi bilaah dadkii waa dhibaataysan yihiin warka badan ha layska joojiyo qaylada badan ha layska joojiyo wax ma la qabanayaa
dadka ha la caawiyo dadka caawinaada u baahin ha la gacan qabto hadda kaaga daran roobaa soo socda dadkaas masaakiinta hadda maanta roobaa daay ilaaha ogsan yihiin waay teendhooyina u baahin ani waxaan raba in la raroo la dejiyo gadaal loo celiyo maxaa la celinaa anigii dowlad wani wax ma celin karno dadka waxa celinaya dowladda waay dadkaas dowladda inay dib u celiyaan beerahooda lagu celiyo dadkan soo dhibooyo oo dhinaca laga dhibooyo qaaraan la dhibooyin qaarka la dhibooyin in la celiyo waay qaarka la dhibaayana in si fiican loogu dhiso teendhooyin loo dhiso laga daboolo meelaha roobka kasoo galayo loo daboolaa la rabay aawe yaa u daboolay in teendhooyinay u baahan yihiin roob yar hadduu hadda maanta roobaada ayaa u musleh way qoynoyaan cid fiirinaysa male 2 sano ka hor saasoo kale wallahi jidka life kasoo galo anoo qaylinayo ayaga dhan habaarayo haddii siyaasiyiintii haddana aan iska habaarno habaarkii in laysii qabanayo in loo duceeyo lee waay waay haddaan habaarno haddana habaarkii qabanayo in kaar alla idinku rido dadkaas hala caawiyo biyay ku dhex jiraan qayla habeen dhanaan qayli markaasaa loo gurmaday maxaa la geeyay teendhooyin maxaa la rabaa si fiican in loo dhiso meelo fiican loo dhiso ama hadday guryo leeyihiin munduladooda xataa waa u fiican yahay biyi ma soo galayo lagu celiyo beerihiina fashta la dhaho meelaha marooyinka lagu xirxiro la fujiyo laakiin khandaraasaa lagu soo qaatay maxaa la samaynaya khandaraasaa lagu soo qaatay isbishal annaga baydhabo khandaraasaana loogu soo qaatay kuwa kaamka garow iyagana saas camal khandaraas le lagu qaatay beledweyne naftirkeeda kaama meeleeda khandaraasaa lagu qaatay meelaha ugu jilicsanoo laga adagyaha waa meel kale kaamaa ka furan ma maqlaysid 3 gobol ugu daran 3daas gobol waa meel kale wallahi meel kale kaamaa ka furan ma maqlaysid waa garoowe oo kaamamkii ka bateenoo tirada ka bateen iyo beledweyne oo ayagana qashin camal kaamam ugu yaalaan iyo baydhabo inta kale meelaha kaamka furan ma maqlaysid waa ladan yihiin wallahi mashaakil waay dhibaato aad u weynaan haysatee ilaahay khayrka allahna waafajiyo marka walaalayaal hala soo wada gurmado soonka inta dhiman dadkaas ha loo soo wada gurmado bacyaal soo qaata dadka kale waa idinka fiican bacyaal ay qaataan dukaamaday wareegaan ay ku soo aruuriyaan dadkiina u gurmada adliista idinka iskiina u istaagay bacyaal u qaata dadkaas aanan afurka haysanin hala afuriyaa idin dhihi lahaa aniga wixii waxay igu soo darsanayeen waa kaasaa taleefankeyga ikhtiyaaraa leedihin nin walbaba jooskiisa waa nin walbaba jooskiisa haddaba 100 ijecelaas igu soo darsatayo waa dhiibanaynaa dheheenoo maasha allah waa loo bixiyey waxoodi maasha allah kheyr allah siiyo inta dhimanaa kusoo darsato dadkaas uunbaa loo wadaa qof walba magaciisa la qoraa wixii soo baxsada si dadkii aan ugu bixin camala loo sheega kulli beejkayga ku jiraan bruuf waxayna natusuna taabsii waay saasaan ku shaqaynoonaa marka walaalayaalo waa kaasaa waqti dambe Soomaaliya u tahay gabdha saaxiibadayga Soomaaliya joogaan ay igu jiraan inaan waqtiga kusii dheereeyo ma rabo insha Allah beritoona waqti fiican soo galaa anigoo weliba wadaadkaygii qaarka Allah siiya macallin aadan sheekh aadan la dhahaa sheekh aadan wato sheekh aadan cali oo habeen kasta ii qudbeeyo ma sha Allah sheekhaasaytiyan habeen dambe beritoona waqti fiican soo qabsanaya idin soo galaya biidnillaahi kariim waa kaasaha la isku duceeyo khayrka la isugu waco meediyahana waxaa loo sameeyey in wax fiican lagu sameeyo looma sameynin in wax lagu sameeyo marka anaga muslimaan nahay walaalayaalow especially gabdhaha Soomaalida muslimkaan la hadlaaya oo marka qaarkood meediyaha maarta waxyaalaha xunka ah soo gelinayo walaalayaalow ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa attaqullah صح واي ما شاء الله إلهي كبقى إن ما عرفت إنه إلهي إذن نحريسته جوجيا إن محل ده إيش بلاش ملودين والله النار تناقها وبضع ميديا ده سام فرت دوح في عن مركز خشن إبلاي اللي كجر ولا ليالو إلهي كبقى حلوت محيها تولي إلهي درتيسة ودافع وحي الدافيسين نمانك يحد عوذ بالله سنة يقولوا أعوذ بالله والله بالله ويل هذا ما نور قبر وحن صادق توحير إلهي كبق ولا ويرفير ويلش يا وما أنت غير الله سيه في عمبه قبليه العرس إبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله ماشي ويلك وكحمان لها أو قبرتك في عنالات سنة كان ويلش يا وحين نقدين وذاده الإله ويلش أنا نضاف والله ويلش يا وناك سنة ذين قبليه العرس بواي ويلك يا وعدا ما ولا له وحن عيب وحن كبحي ولا له سوق قرن ولا له اسكح الشاء ويلش يا بعلعلين ويانا والله آخر الزمان كما كل الله تنعم الواي ولا ليالو إلهي كبقى ميديان هذا وحسو قلنيسي وحفي عن سوقشتا نقد جوجية قشنكا قبلها هذا إذن سوقار كلب كيغان قبلها سوماليات ميل كستو أجوكتين ولا ليالو إس أسترا أدون وقال تقايا إذن سرن افتين كانوا إذن سرن أدون كألاب ألابي واي الماير الريسك مالتي ألاب ألابي الله قضاء يكون عياران أدون كان أوجد إلهي حكيس ألاب ألابي وكيا كورنه وحي وياه ملك هل مرون اللابان لغو فيران هل مرون اللابو ساس لو اللابو أن لغو فيران والله إلهي كبقى
wax wanaag ah waa lagu samaysan karaa kii business wuu ku samaysan karaa kii gabyaay gabaygiisa wuu ku samaysan karaa kii maxay ahaatole banooni beel waay laakiin gabdhaha faxshiga meediyaha wado walaalayaalo attaqullah ilaahay ka baqa wiilashiyaaba indhaha idinka daboolinayo dhahoy warayaa walaalayaalow naga jooga walaalayaalow naga bixiya war gabdhaha isku xishooda wiilashiyaa dhahoyaan wiilashiyaa sanadkan xishood leh gabar xishood ma leh wallaahi kulli maaha gabdhaha qaarkood waay wiilashiyaa celcelinooyaan war walaalay ka bixi maalin waxaa ujeeda wiil gabar inta isa soo qaabis wiil walaalay ka bixi waxaan walaala ilaahay ma ka baqaysid miyaa dhahay maxaa rafaadkan wallahi aakhir zamaan waay marka kilibkan kolley gabdhaha dhalinyarada wuu gaari doonaaye walaalayaal isku xishooda oo meediyaas wax fiicana lagu samaystaaye adliista sheeko keensada sheeko keensada sheeko macaan hataa keensada brogramkaas intaa idinkoo qaawan isa soo gelin laheedeen waa idiin hagaagsama haddadkii youtube ay ku dagaalamooyaan youtubeka isla wax ku heshiin kabacdina waa la isa soo qaawina war gaalamaan noqonay war ilaahay ka baqa youtubeka way kalaa waxaa jira wax ku heli kartid adoo brogram samaynayo adoo raashin karinaayo adoo madax hagaajinaayo adoo waxyaalaha laisku qurxinayo soo gelinaayo gabdho badanaa sameeya waana u kala socdaa youtubekooda kaasaaba kugu filanbo intaad dambaabi laheed oo wax dembi intaad soo gelisid oo adigana dembi kaa soo raacay shilinka aad ka heshidna uu xaaraan yahay intaba isku dar war walaalayaalo ilaahay ka baqa intaasna guubaabay iga tahee bal waa kaasaa biidni illaahi kariim waxaa la yidhi wixii aad ku aragtid meel aad ku aragtid indhahaaga waa inaad gacantaada ku suulisa haddaa ku suuli weysidna afkaaga marka afkaygaan hadda ku suulinaayay dadkaasaana wax u sheegaayo walaalayaalo khaatimada khayr allaha nooga dhigo ilaahay jidka toosanna allaha nagu toosiyo brogramkana ii sheer gareeya maasha allah waa tabarucaadeeni ii ku siro guubaaboon gabdhaheenna aan u diray walaalaheenna gabdhaha ah soomaaliyeed oo qaarkood jidka ka qalloocan oo rabno maaragtay inaan soo toosino waa in wax loo sheego waay wadaadada waa sheegan say u sheegayan waa daaleema wadaad maalin hore wax u sheegayaaba lasoo caayib maskiinka naftarkiisa usaaba lagu soo daribo oo layiri dhilooydhinka oo dhahayaa layiri wadaadkii iyo gabartii qaawniyada laisku soo daroo lasoo geliyo yaab naftarkii wadaadkii hataa mafakaaya hadda wax sheega xataa wallahi waxaan ku jirnaa aakhir zamaane ilaahay khayrka allahna waafajiye marka walaalayaal waa kas taleefkayga meeshuu ku qorayahay whatsapp haan usoo gala kabacdina isoo waca kabacdina qof walba magaciisaan qoraa meeshaa ku darsanaysiin haddaa dhaysin tiim gaarsiiya afurka waa idinkugu daraya haddaa dhaysin raashin ceeriina rabna waa idinkugu daraya biidni illaahi kariim waa kaasaa soomaaliya waqti dambe u tahay iska seexda بريا وقت في عن صوغلا ما دام الليل صوغلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير جسدين الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته